بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم walaalkeen maxamed cabdiqaadir cusmaan oo idin soo diyaariyey cashirkii tiknoolajiyadda ahaa ee fasalka sideedaad. Ardayda aad bay u mahadsan yihiin boqolkiiba boqol. waan ugu mahadcelinayaa. uguma talagelin aniga inaan ardayda mashquuliyo ama waxyaabo kale aan u diro. keliya waxaan halkan ugu talagalay inaan u faa'iideeyo ardayda. marka xiisada ka baxo wixii dheeraad ah iyo wixii faahfaahin ah si ay meeshan ugu arkaan ayaan ugu talagalay. waa mahadsan yihiin dadka subscribe ii soo saaray channelka oo macalin shaakir ah. waa mahadsan yihiin dadka commentiga share iyo wax kale kulli ka bixiyey. aad baa mahadsantihiin. waa idinka mahadcelinayaa sida aadka aad share iyo comment ugu bixiseen. sidoo kale waxaan idinku mahadcelinayaa dulqaadkii iyo intii saacadood ood geliseen ka faa'iidaysiga iyo barnaamijkan iyo gudbintiisii. ardayda kale ha lasii gaarsiiyo walaalihiina ah oo u baahan inay maadada aad u fahmaan oo ay ka qayb qaataan ay aad u fahmaan. maadada waa maado weyn oo ballaaran, waana fasalka sideedaad insha allahu tacaala. maanta waxaan qaadanaynaa cashir xiiso badan aad iyo aad. waxay noo maraysa marka qeybaha tamarta. halkan uu cashirku noo marayay ururinta tamarta qoraxda. halka ayaynu maray. maanta waxaan qaadanaynaa marka ururinta tamarta qoraxda iyo tamarta dabeesha. labadaas aan isku darsan doonaa. waayahay aan bilaabo marka cashirka. ay arday boggaada qalinkaada soo diyaarso. diyaar baa taa malaynayaa. waayahay aan bilaabno marka. bismillaah. ururinta tamarta qoraxda. tiknoolajiyadan waxaa la adeegsadaa kulka qoraxda oo la aruuriyo. tiknoolajiyadan waxaa la adeegsadaa kulka qoraxda oo la aruuriyo. ilaaska iyo iftiinka qoraxda, kulaylka qoraxda ayaa la aruurinaya. kaasaa la adeegsanaya. tiknoolajiyadan waxaa la adeegsadaa kulka qoraxda oo la aruuriyo. bikaacooyin iyo muraayado ayaa lagu aadiyaa qoraxda. bikaacooyin waa dhalooyin waaweyn iyo muraayado ayaa lagu aadiyaa qoraxda. waatina qoraxda waa arkaysaa. kuwaana ayagoo faahfaahsan oo muujisan ayaan idin tusaya ama link idin soo dhigaya. bikaacooyin waa muraayado waaweyn, dhalooyin waaweyn. bikaacooyin, dhalooyin waaweyn iyo muraayado ayaa lagu aadiyaa qoraxda. sababtoo ah tusaale, haddii qoraxda aan ku aadiyo muraayad isla markaana adiga kugu soo foorariyo, waxaa meesha ka dhacay reflection wax loo yaqaan. ilaas qoraxda wuxuu ku dhacay muraayada iftiinka ku dhaca oo kusoo duula indhaha kugu dhacaya. marka indhahada ay ku dhacaan waxaad dareemaysaa cabir ama shucaac. sidaa darteed iyagana meeshaas kuleel ay dareemayaan bikaacooyinkaas. tiknoolajiyada waxaa la adeegsadaa kulka qoraxda oo la aruuriyo. bikaacooyin iyo muraayado ayaa lagu aadiyaa qoraxda. tamarta noqodka reflectionka ayaa lagu jeediyaa biyo ku jira dhuumo. biyo kiimika ah oo ku jira dhuumo ayaa lagu aadinaya. okay, biyuhu markay kulaadaan qoraxda markay biyaha ku dhacaan qoraxda way kuleynaysaa. biyuhu markay kulaadaan waxa ay noqdaan uumi. waxay noqonayaan vapor, evaporation waxa loo yaqaan. uumi biyood, uumi ayay noqonayaan. vapor wareejinaya tarbiino, muraaxado yaryar. tarbiino sabab u noqda dhalinta tamar, danab ama dhalinta koronto oo ah joogto. had iyo jeer cadceedda ama qoraxda way joogtaa mar walba, maalin walba way soo baxdaa. isla markaana waxaa laga dhashanayaa wax loo yaqaano koronto ama danab. ururinta qoraxda. tiknoolajiyadan waxaa la adeegsadaa kulka qoraxda oo la aruuriyo. bikaacooyin iyo muraayado ayaa lagu aadiyaa qoraxda. tamar noqodka ayaa lagu jeediyaa biyo ku jira dhuumo. biyuhu markay kulaadaan waxa ay noqdaan uumi wareejiya tarbiino, sabab u noqda dhalinta tamar, danab, koronto oo ah joogto.
marka waxaa dhalanayo koronto, dadkan way ka faa'iideysanayaan. halkan waxaa noo yaalo su'aalo. cilmi baaris waxqabadka koowaad. cilmi baaris ayaa naloo weydiinaya, cilmi aqoon baan soo baaraynaa. waxaan soo baaraynaa sida Soomaalidu u diyaariso cusbadan aan raashin ku darsano, sidee Soomaalidu u diyaarsataa. cusbada intaa laga keenaa mis weydis weligaa, mise iyadoo guri ku taala hooyadaa suuqa kasoo gadaysa la aragtay. waxaa lagaa rabaa sidii loo soo diyaariyo cusbada inaad soo sheegtid, waxaad weydiisaa dadka badda ka shaqeeya insha Allah. waxqabadka labaad, waxaan koox koox ugu doodaynaa oo aan soo jeedinaynaa sida solarka ugu qayb qaataan dhaqaalaha qoyska iyo bulshada. sida solarka ugu qayb qaataan dhaqaalaha qoyska iyo bulshada. waayo bil walba koronto markay kuu soo saar saacad $7 ama $10 ay kuu soo saarto, lacag baa laga qaadaa. ama solarka gurigaada ku xiran yahay, qoraxda rabbaaniga ayuu haystaa, cid lacag ku weydiinaysa ma leh. laakiin qalabka solarka soo gadashiisa bisaa lacag ah. taa la soco markaad soo gadatid solarka maalinta waxay ka dambeeyo, cid koronto dab ah ku weydiinaysa ma jirto. waxqabadka saddexaad, waxaan saaxiibkay weydiinayaa. waa arday walba saaxiibkiis, arday walba wuxuu leeyahay saaxiibkiis. waxaan saaxiibkay weydiinayaa sidee solarka ugu qayb qaadan karaa buuxinta moobeelka. solar maqashay, waa soo qaadana cashirka iyadoo faahfaahsan, hadda iyadoo sawir iyo muuqaal waan arki doonaa. sidee solarka ugu qayb qaadan karaa buuxinta moobeelada. baadiyaha markii la taga solarka dabka loo tagaa, suu dabka korontada intuu keenaa, suu dabka u buuxiyaa. dadku ku nool tuulooyinka ama meel aan danab ama koronto ka jirin, meel aan koronto joogin, waa duur cidlo ah, dad iska dega baadiya marka lagu guura waa garanaysan, ama tuulooyinka aan weli korontada iyo matoorada aan gaarin. sidee markaa ay ugu faa'iidaystaan oo u buuxsadaan moobeeladooda. waxaan saaxiibkay weydiinayaa sidee solarka ugu qayb qaadan karaa buuxinta moobeelada dadka ku nool tuulooyinka ama meel aan danab ama koronto ka jirin. isla fahna malaynaa dad u baahan tahay waad ka doodaysaan. waayo casharka labaad waxaa waa tamarta dabeesha. bal aan u noqono solarkii sawir ahaantiisii. waayahay solarka waa kanaa, midkan ujeedo waa solarka waa kanaa. halkan waxaad ka aragtaan iftiinka ilayska qoraxda ayaa haya. halkaa waxaa ku aragtaan ilayska qoraxda ama iftiinka qoraxda ayaa haya, solarkan ay ku dhacaysaa. sidoo kale solarka wuxuu u baahan yahay in la rakibo. dadkan waa dad Soomaaliyeed ee magaalada Kismaayo ee ka shaqeynaya solarka. mardhow safar ugu tagay booqasho ayuu solarka xirayaan arkay. midda kale jaamacadan Juba University of Somalia iyadana waa laga bartaa qaabka solarka loo suubiyo. halkan waxaa arkaysiin dad Soomaaliyeed oo markaa solarkii ka shaqeynaya oo xirxiraya. okay waa ayagii oo solarka hagaajinayo. solarka muxuu ka kooban yahay marka. solarka qaybo badan uu ka kooban yahay. qaybaha uu ka kooban yahay waa kanaa. kan waa miraayadii, bikacooyin waxa la dhahaa miraayadii. kan waa photovoltaic. kani waa aragtaan dhammaan inta solarka. kan waa darbigii loo xigay, kan waa qaybta hoose, kan waa qaybtii dhexe, kan waa qaybta solarka. intan oo la isku geeyey mid walba marka isku rakibmaan ayaa solar la yiraahdaa. kan kaligiis solar ma noqon karo, kan kaligiis solar ma noqon karo miraayada, kan kaligiis macnaha bikacooyinkan macnaha solar ma noqon karaan. kuwan biyaha wax ku jira ku dhammaan wax solar noqon kara ma leh. hadaa rabtid magacyadooda ingiriisna halkan ka aqriso mid walbo insha Allah. waayahay qayb ka mid ah marka la soo qaado, solarka wuxuu leeyahay qaybo badan. qaybtan hadda fiir yariishta marka qayb ka mid ah solarka la soo qaado, uumi biyo ku jiro. halkan marka aragtid qaybta dhexe oo ah sawirka hore markaan kugu celiyay waa qaybtan. marka intaa fiirisid solarkii saddexdiisa qaybood, afarta qaybood uu ka koobnaay, qaybta alwaaxa oo hoose dhulka la dhigayo ama meesha hoose, labada qaybood oo isdul saaran qaybtaas kale miraayadii iyo solarka dhex jiro. waayahay type N iyo type B la kala dhahaa, waan baran doonaa. qaybtan marka aragtid waa qaybta korontada dabka laga dhaliyo.
qaybtan dhexe waxaa arkaysaa inay ku jiraan gas ama biyood aad u fiirso qaybo badan iyo say u socdaan iyo molecules u dhaqdhaqaaqaan iyo sida hawada u dhacdo waa cashirka lagu barto dheeraad ah ma doonayo inaan kusii faahfaahin sababta ah cashiradan hela heer jaamacaday leeyihiin waqtigaa iga dhammaanay marka haddaan kusii faahfaahay laakiin arag intay ku jiraan biyo waxaan dhibdhabahan ujeedadu waa fiber gas oo vibration gas ah biyo karkaraya qoraxda karkaranayso biyaha markay karkaraan waxay noqonayaan ionska ku jira dhaqdhaqaaqaya waa positive iyo negative meesha korontada ka dhashaan way dhaqdhaqaaqayaan kuwa dhaqdhaqaaqaya yariishkan electronka waa kana oo wareeganaya waxaa meeshaad ka arki doontaa insha allahu tacaala halkan marka inside photovoltaic cellka gudihiis markii la fiiriyo waa kan halkan cellkan kaliya qaybtan yar oo lasoo qaaday oo la weyneeyo waaye marka qaybtii solarka ahayd oo miraayad markii lasoo qaado waxaa arkaysaa in ay ku jiraan dhibco yaryar oo energy from light ilaaska imaanaya xagga qoraxda tan waa energy from light ilaaska qoraxda xaggeeda ka imaanaya ilaaska qoraxda ka imaanaya marka uu ku dhaco halkan uu soo maraya waa positive terminal lahaa halkan uu soo baxay negative iyo positive loo kala qaybiya labada dhinac marka meeshan aa ujeedid miraayadan waxaa ku jiro gas biyo biyooda ku jiro gas habo oo biyo ah ayaa ku jiro marka aad ula soco halkaas marka qaybaha dambe waxay u qaybsamayaan negative iyo positive ah korontada plus iyo minus ah marka la plus iyo minus marka leer lagu xiro leerka wuu shidmaya electric flow current waa arkaysaa dhammaan waxyaabahan sharaxaad dheeraad u baahan yihiin aad u fiirso marka inta waxaan arkaynaa solar plus storage keedinta dabka solarka waa kana battery waa kan batteriga wuxuu keedinayaa marka solarka qoraxda iftiinka wuxuu ku dhacay ilaaski halkan buu ku shubayaa kadibna baaliyaala loo tagaya kadibna leerara lagu sii xiraya xaafadaha la gelinaya xaafadaha ayaa loo kala dirayaa sida oo aragteen korontoyinka kale wadada oo kale baalooyin aragtaan waaya sidoo kale batteriga markii la buuxinayo waa kana solarka qoraxda la dhigaya labadiisa fiil plus iyo minuska lagu kala xiraya labada dhinac qoraxda loo dhigaya kadibna batterigaas ayaa lagu buuxiyaa sidaas ayaa batteriga loo buuxiyaa lagu weydiiyo sida solarka loogu buuxiyaa batteriga waa kana solarka soo qaadaysa korontadiisa soo qaadaysa labada dhinac uu kala xiraysa plus iyo minus taas ayuu ku buuxsamayaa batteriga waxaa jira marka solarkaas faa'iido ayuu leeyahay kow waa in qorax la helaa haddii qorax aysan jirin ma solar ma shaqeynayo laba waa inaad solar haysataa okay saddex waa inaad haysataa battery waa inaad haysataa afar waa charge controller kan ilaalinayo qulqulka danabka ama korontada waa inaad haysataa qulqulka danabka waayo sidoo kale inverter waa inaad haysataa oo ah dabka in loo bedelo electric caadi ah sida inaad ku isticmaashid raadiyo mobile inaad ku isticmaashid inaad ku isticmaashid waxyaabo kale qazaalad feero waxaa rabtida ku isticmaali kartaa waxaa laga maarmaan ah koow oo ah solar inaad haystid laba qorax inaad haystid saddex inaad haystid battery inta hataa haysatid leer waa shidan kartaa kan waxaa waa charge controller kuwa waxay leeyihiin saacado oo dabka lagu control waxyaabo badan ah inverter waa bedelaha macnaha electric solarkan macnaha haddaad taabatid korontada macnaha ma ku guweys dab maaha laakiin kan markii la bedelo inverter la geliyo dabkan korontada caadiga fiilada ayuu noqonaya waana halis wuuna ku dilayaa dabka dadka dilo waa inverterka markuu galo waa marka AC ayaa lagu xirayaa AC markaa ku xirtid wax kasto AC leh haddii laptop aad ku xirtid haddii aad ku xirtid macnaha samaacad haddaad ku xirtid maxaan dhahaa feero television haddaad ku xirtid TV wixii lamid ah qasaalad dharka dhaqda dhammaan inverter waa inay soo maraan inverter adoo soo marin macnaha uma isticmaali kartid dab ahaan waayo dabkaas ma shaqeynayo sida caadiga oo kale ah waayo dab solar ah waaye dabkaasna wuxuu ku shaqeynayaa leerasha solarka ah hataa ma shidaayo leerashan caadiga ah waa in inverter la geliya markuu inverter qaabkaas uu soo gudbiyo kadib aa la isticmaali karaa leerka marxiyayaasha waa kuwan marka keediyaasha waaweyn ee marxiyaha waa kan dabkeediyaasha solarka waa kuwan oo fara badan oo inta lagu tax qoraxda la dhigay halkanay ku keedinaya marka kuwan aa ujeedid waa dabkeediye marxiyaalka lagu sheegay waa noocaas habeenka markii la gaaro
habeen markii la gaaro oo qoraxda ay xarooto bisha ay soo baxdo solarkii waa kana habeen waaye waxa uu dab ku dhacay malaha ilayska iftiinka qoraxda ma hayso marka halkan waxaan ugu arkaysaa inaan isticmaalayno keedihii iyo wixii oo korontada noo keeday baterigii iyo wixii lamid ah consumer unit ayaa loo yaqaana halkan marka iyo xaafadaha inaan usii gudbino iyo meelaha kale telefishinada iyo raadaaladii waxaas inaan usii gudbino sidoo kale dhale inaan ku daawano TV inaan ku daawano waxaas marka waxaan oo qasbaya dabkii solarka habeenkii maalintii aan ilaashanay oo noo dhurmay oo halkan noo galay ayaa marka dabka noo keedinaya habeenka markii la gaaro waa kana dayixii solarka macnaha wax dab u qaadanayo malaha wax dab u buuxinayo malaha dabkii marka qabow noqonaya asidan marka wax kuleel ma noqonayo okay waa solarkii oo iskuulka sawiray ka soo marka halkaas waxaa noogu eg marka qaybtii oo ah solarka waxaan gelaynaa tamarta dabeesha marka dabeesha oo laga dhalinayo tabar ama qubad ama awood tamarta dabeesha waa nooc ka mid ah noocyada tamarta dabeesha waa nooc ka mid ah noocyada tamarta waayahay tamarta dabeeshu waxa ay ka mid tahay tamarta maaxata ma aha tamarta gurta dabeesha had iyo jeer waan aragnaa waan dareennaa waayo dharkaada ayaa bibiglaynayo waa aragtaa qashinka wadada yaala ama bacda ama wax ka shay kasto marka dabeel geedihii inaad dhaqdhaqaaqayna arkaysaa dabeesha marka waa kaa waan dareennaa marka tamarta dabeeshu waxa ay ka mid tahay tamarta maaxata waxaa tamarta dabeesha adeegsan jiray doomaha shiraacyada leh ilaa hadda waa la adeegsadaa wadamada qaarkood waa la adeegsadaa dabeesha laga maarmo laakiin matooro ayaa la soo saaray oo doonta macnaha doomanka ku shaqeeya waxaa tamarta dabeesha adeegsan jiray doomaha shiraacyada leh iyo sidoo kale ceelasha leh marwaaxadaha wareega waa arki doonaa iyo ceelal waxaa jira marwaaxado leh wareega okay tamarta dabeesha waan fahnay su'aalaha cashir gooni noqonaya insha Allah sida ardayda codsadeen gadaal baan ka dhigaynaa doontii waa kana marka shiraacyada waa kuwan bahalahan maryaha meesha ku xiran waayahay aan hoos socdo shiraacyada waa aragtaan okay halkan waxaa ku yaalo aayad quraan ah oo ilaahay noogu cadeynayo ilaahay noogu galadeysanayo nimcadii ilaahay oo insiiyo dabeesha ah dabeeshu waa nimco Allah nagu galadeystay oo mudan in loogu mahadceliyo loogu mahadiyo Allah wuxuu quraankiisa subxaanahu wa ta'aala ku leeyahay qaala ta'aala wa min aayaatihi ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid ah aljawaari doomanka fil baxri badda ku sugan doomanka badda ku jiro oo badda ku sugan kal aclaami aad u malaysay sida buuro oo kale markay soconayaan waata doonta meesha noogu sawiran aayadda labaad ilaahay wuxuu ku leeyahay in yasha hadduu Allah uu doono yuskinu riixa dabeesha buu dejinayaa dabeesha maray duufaan noqonaysa doominkii gudoomay waxyaabo badan dhacay in yasha hadduu Allah uu doono yuskinu riixa dabeesha buu dejinayaa fayadalalna waxay noqonayaan rawaakida kuwa ku xasilo oo ku nagaada macnaha ku dulnagaada calaa dahri biyaha korkooda inna fi dhalika arinkaasi waxaa ku sugnaaday la'aayaatin aayado likulli sabaari mid kastoo marka sabar badan shakuurin oo marka mahadcelin badan aayadii oo macnaha la turjuwaanay luqadda af Soomaaliga lagu turjuwaanay ayaa halkan ku taalo macnaheedu leeyahay calaamadooyinka Allah waxaa ka mid ah doomaha socda badda ayaga oo aad moodo buuro doomanka oo socda badda dusheeda aad moodo buuro haddii uu doono Allah wuu xasiliyaa wuu joojiyaa dabeesha macnaha dabeesha xadbaafka ah oo markabka ama doonta gudoominayso ama dhibaato geynayso ilaahay wuu joojiyaa wuu xasiliyaa markaas ayay dul fariisanayaan doomuhu badda markaasay dul fariisanayaan doontii ma dhaqaaqaysa marka haddii dabeesha ay joogsato naftarkeeda ma dhaqaaqayso waxaa laga wadaa dabeel yar oo xasiloon oo doonta wadayso doonta marka meesha badda korkeeda ayay ku nagaanaysaa haddii uu doono Allah wuu xasiliyaa joojiyaa dabeesha markaas ayay dul fariisanayaan doomuhu badda dusheeda taasina waxaa ugu sugan calaamado ruux kasta oo samir iyo mahadin badan
calaamadooyinka Allah waxaa ka mid ah doomaha socda badda ayaga oo aad moodo buuro. Haddii uu doono Allah wuu xasiliyaa joojiyaa dabaysha, markaas ayay dul fariistaan ama dul fariisayaan markaas ayay dul fariisanayaan doomuhu badda dusheeda. Taasina waxaa ugu sugan calaamado ruux kasta oo samir iyo mahadin badan. Ruux kasta oo samir iyo mahadin badan, calaamad weyn ayaa ugu sugan qof kasta. Horumarka tiknoolajiyadda waxa ay gaartay in la sameeyo tarbiino u beddelo tamar. Tarbiino waa marawaxadahan wareeganaya. Tarbiino u beddela tamar socod dabaysha. Horumarka tiknoolajiyadda waxa ay gaartay in la sameeyo tarbiino u beddela tamar socodka dabaysha. Mid tamar makaanika ah ama tamar danab ayaa loo beddelaa. Makaanika waa sida inay wareegtaan kushiinooyin wixii la mid ah ama dhaqdhaqaaqaan, ama tamar danab oo ka dhashay koronto iyo wixii la mid ah. Aan aragno markaa tamarta dabaysha. Tamarta dabaysha saa arkaysaan inta waxaan ku aragtaa baalo oo tarbiino ah oo macnaha kala baxsan laba qayb kala ah. Halkan waxaa waaye waxaa laga dhalinaya marawaxadan ayaa wareeganayso, tarbiina ayaa loo yaqaanaa. Marka meelo badan laga dhaliyaa. Hadda waxaa aragnaa in badda korkeeda laga suubinayo biyo, macnaha biyaha korkooda laga suubinayo tarbiino, isla markaa dabaysha badda kasoo baxdo ayaa waxay noo suubinaysaa koronto ayay noo dhalinaysaa. Waa kana fiilooyinka halkaa maraya arkaysaan, baashana wareeganayso waxaa noo dhalinayo koronto danab koronto ayaa noo dhalinaya. Soo aragtaan baddi waa kana wixii macnaha badda ay ku shaqeynayay iyo qaabka u xiran yihiin aad baa u aragtaan. Waa marawaxadahaas wareegsanayo. Sidoo kale laamiga hareerihiisa iyo dhinacyadiisa waxaa lagu dhalin karaa korontooyin ayaa lagu dhalin karaa. Bahalahan wareegsanaya aad arkaysaan marawaxadaha laamiyada ayaa dhinacyada loogu xiraa iyo wadooyinka ayagana laamiyada marka magaalada marka laga baxo waaye. Baalooyinka oo aragtaan wax magaalada laga baxo, tusaale ahaan xamar iyo kismaayo inta udhexeyso kale magaalooyinka intii loo socdo. Halkaa waxaa ku aragtaa marka korontooyinkooda wadada inay iftiiminayaan, hadhow baalooyin loo xiraayo. Marawaxadaha waa kuwaan. Sidoo kale marawaxadda waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan. Qaybta marawaxadda waa aragtaan horta hawo waa in la helaa. Filaarta number 1 waa in hawo la helaa. Hawada markay marawaxadda ku dhacdo way wareejinaysaa. Markay wareegsato kushiinooyinkan 3 xabo ah ayaa ayagana is wareejinaya. Marka makaanika ka dhalinayso waxaa ku xiran meesha korontooyin iyo fiilooyin ku dhex jiro iyo maxaan dhahaa birlab iyo marka way wareegsanayaan. Marka waxaa dhalinaya electric halkan ku shubmaya. Halkan markuu ku shubmo lambarkan number 9 ayuu macnaha ku shubmaya number 9 kadibna wuxuu beddelaya koronto caadi kadibna guriyasha dadka ayaa loo qaybinaya. Koronto caadi ay noqonaysaa kadibna leerasha guriyasha loo qaybinaya. Dabkeediisa waa kan. Dabaysha sidoo kale waxaa loo isticmaalaa marawaxadaha ceelasha biyaha dhaamiya. Baashan aad ujeedid waa marawaxad wareeganayso. Waxaa dhalinaya horta dabaysha waa kana waa arkayseen baalaha buubu waaye. Baalahan buubu waaye waxaa aragtay ciyaalka diyaarada iyo wax bay subsan abitay bay dhahan ama waxyaabaha ciyaalka ay jecel yihiin marmari iyo bac iyo wax inta ku xirtaan dadduuliyaan diyaaradda ama iyo diyuuradda ay ka dhigtaan. Baasha waa kana marawaxadan waa ceel la dhaansanayo waaye. Haddaad intaad kortid ayaa wareejinaysaa sidii ninkan oo kale baalbirta ku kare wareejinaya. Markuu wareejiyo biyaha ayaa dhalanayo. Sida u shaqeysa marka marawaxadda waa kana baashan dabaysha ku dhacayso meeshan marawaxadda dhanka dabaysha ka socota ayaa la aadiyaa way wareeganaysaa kadibna biyo ayaa dhalanaya kadibna biyaha halkaas booydas ku shubayaan. Qaabka u dhalanayso waxaa way sidii ceel jublaha oo kale biyaha waa la soo nuugayaa. Dabaysha markay ay wareejiso tubooyin ay kushiinooyin wax baa wareegsanaya biyaha way soo nuugmayaan. Biyaha dhulka ay ku jiraan markay biyaha soo nuugmaan halkan dhulka waaye waa aragtaan halkan barkadii waaye kan waa baashii baalihii biyaha markay soo nuugmaan waxay ku shubmayaan barkada. Halkaas aad arkaysa ayaa tahay in biyihii lagu shubo. Biyaha halkaas ay ku shubmayaan. Ama barkada sidan oo kale haday tahay ay u wareeganayso isla markiina tubada halkan ay ku jirto sida ceel jublaha oo kale waaye halkaas biyaha ku shubmayaan. Biyihii oo beer lagu waraabsanayo ama dalag loo isticmaalayo baashi way wareegsanaysaa waa kana tubadaas biyihii socdaan oo nin walba isticmaalayo inuu
oo biyihii isticmaalo ama xoolo ayaa lagu waraabsadaa. Bahasha way wareeganaysaa, waa arkay barkad biyaha meesha yaallo. Qof walba wuu isticmaalayaa si biyahaas uga faa'iidaysto. Xoolihii ayaa cabaayo, marawaxadii ayaa wareeganaysa, markaa barkadaas ay biyaha ku shubaysaa, kadibna xoolihii ayaa ka dhargaayo, lagu waraabinaya iyadoo qofna tacabkiisa ama xooggiisa biyo uu ku dhaaminin. Sidoo kale marawaxadaha waxaa loo isticmaalaa ceelasha soo kama hadlin, haddana waxaa loo isticmaalaa doomanka. Marawaxadan doon matoor waaye, isla markaana waxaa loo isticmaali karaa marawaxad. Marawaxadaas hadda ku xiran arkaysaan waa doontan, isla markaana electric solar inta u saaran, marka way wareeganaysaa. Mar alla markii bahasha wareegaysto doonta way kacaysaa, way soconi. Hadii la rabana matoorkeeda loo kicinayo solarka. Sidoo kale shiraac ayaa jiro, doomanka shiraaca leh waa markabkan hadda meesha socdo aa ujeedaan. Wuxuu ka mid yahay doomanka shiraaca leh, isla markaana badda ku shaqeeyo. Shiraacna waxaa laga wadaa maradan meesha ku sawiran oo arkaysaan ayaa dabaysha riixaysaa. Mar alla markii dabaysha ay tuurto ay riixdo, doonta markabka wuu dhaqaaqayaa. Kaa markab ayuu ahay, iyadoo doonna waa kinaa. Laashashka ayaa la dhahaa, laash ayay dadka Soomaalida dhahaan ama shiraac, sida qof walba u yaqaano. Laash dheh ama shiraac dheh. Waa doontan marada leh oo biyaha ku jirto. Ayagoo badan waa kuwan marka doomanka oo safar hadda gali rabo oo tartan macnaha gelayo oo xagga shiraacda oo badda lagu tartamayo waayahay. Sidoo kale shiraacda marna waa la dejiyaa, oo marada waa la dejinayaa, marna waa la taagayaa. Markii la taagayo waxaa la jiidayaa xarkooyinkan oo aragtaa ninkaasi shiraacda ayuu fasaxay, tii labaad ayuu fasaxayaa. Marka halkaas waxaa ka cad in doonta marna ay leedahay xarig oo loo sii daynayo. Markii loo sii daayo waxay noqonaysaa doontii shiraaca inay markaa ay taaganto. Waa la taagayaa, xarigga la jiidaya, waa la giijinayaa. Marna waxaa waaye waa loo dibcinayaa oo xarigga loo sii daynaya. Hadda tusaale ahaan waxaa aragtaa maradan ugu horeyso inuu ku xiran yahay xarig. Hadhow xariggaas ayaa la furayaa. Markii la furo, xariggan meesha kasoo laalaado ayaa ninkan intuu qabanaya tartiib, kadibna tartiib ayaa loo sii daynaya, kadibna marada waa lasoo laabayaa. Waa kana marka iyadoo kalluumeysi loo aadayo, doontii oo calanka Soomaaliya ku sawiran yahay. Marka waa kana marka geedkii laashkii oo la dejinayo, laashkii oo la dejinayo, maradii oo la dejinayo. waa kana dadka dejinayo marada saas loo dejinayo. Geedkaas ayaa haayo, waa arki doonaa structure-keeda gadaalan ka sharxa qaab dhismeedkeeda. Markii marada la dejiyo, birtaas ayaa ay leedahay, waa laga furanayaa, maradii waa la furayaa, gudaha ayaa la gelinayaa, sababtoo ah marada qoraxda ayaa dilaacinayso ama qoraxda ayaa waxyeeleynayso. Waa laga furayaa marka marada markii laga furo waa kaa marada. Marka birtan dheer waxaa inta ugu xiran xarig waaye. Marka birtan xariggana lasoo jiidaya, halkan ay birta imaanaysaa, kadibna xarigga lagu xirayaa, kadibna marada intii lagu xiro ayaa lagu sii daynayaa, dhinacyada lagu xirayaa doonta dhinacyada. Waa kana marka isagoo nin saaran yahay oo shiraaci uu soo laalaabay oo lasoo duduubay, maradii lasoo duduubay oo lasoo dejinayo, maradii oo lasoo dejinayo oo xarkeeda iyo waxeeda ku xiran waa kuwan. Marada marka waa lasoo dejiyey. Waayahay doonta marka waxay leedahay qaybo ay ka kooban tahay. Sidaa arkaysaan qaybtan waa udub dhaxaadkii, waa ushii ama tiirkii doonta. Mast ayaa Englishka lagu dhahaa, iyadoo English ah halkan igu soo qoray. Waa udub dhaxaadkii oo doonta ay ku shaqeynaysay oo doonta hayay waaye. Halkan waxaa ku yaalo kushineeto oo loogu talagalay in xarigga lagu fasaxo laguna sii daayo. Hool ayaa loo yaqaanaa, waa meeshaas. Udub dhaxaadka marka kor kushineetooyin baasha ceelka lagu dhaamiyo, macnaha ceelka marka la dhaaminayo baasha ku xiranta waaye. waa maradan iyadana waxaa la dhahaa sails ayaa la dhahaa, sail boat. Sail meesha ka imaato waa shiraaca aad arkaysaan, waa midaas. maradan meesha ku taal waxaa la dhahaa sail. Sail waa la fahmo. Sailka marka xarka ayaa ku xiran, xarkaha meelaha ay ku xiran yihiinna waa ringeyn. Marka iyadoo marka mid walbo iyo sawirka waad aragtaan. Sail boat parts explained, qaybaheeda la sharxayo, overview aragti guud waaye. mid walba waad arkaysaa marka.
kan maradan waxaa la dhahaa mainsail midda ugu muhiimsan waa haddii maradan meesha ay jiri lahayn doonta ma dhaqaaqi lahayn kan udub dhaxaadkii waaye mast ayaa la dhahaa maradan middan kale waa jib ayaa la dhahaa oo marada waxaa ku jiro xarko ayaa ku taxan waa arkaysaan xarkahan ulahan xarka ayaa kusii xiran marada oo dabeesha macnaha xooggeeda marada la celinayo waa arkaysaan kan waa steerinka oo aad taqaanid oo doonta laga leexleexiyo steerinka af soomaaliga ma aha english waa shufeer ayaa la af soomaaliga shufeer ama steering la iska dhahan soomaali meesha laga wada laga leexleexiyay baabuurka iyo waxaas doomanka waa steering shufeerka meesha shufeerka okay meeshan radalka ay ku qoran tahay waa badiiladii iyo wixii markaa warwareejinaya kiil waa laftii ama shafkii meesha doonta dhexbartankeedii waa arkaysaan dhammaan qeybaha ay leedahay doonta waa arkaysaan waayahay dhammaan qeybaha doonta ay leedahay waa arkaysaan waxqabad markaa unu soo noqono cashirkeena waxqabadka koowaad waxaan koox isugu dhaafsanaynaa isdhaafsi koox loogu doodayo faa'iidooyinka kale oo ay leedahay tamarta dabeesha macnaha waxyaabo badan ay leedahay tusaale waxaa ka mid ah in dharka lagu qalajisto hadii dabeela jirta banaanka waxaa ka mid ah dabka markaa shidinaysa oo kale dabeela u baahan tahay waxyaabo badan way faa'iido badan tahay dabeesha soo raadiya cilmi baaris qaybta labaad cilmi baaris ma suurtagal baa in guryaha lagu samaysto murwaxad dabeeshu wareejiso oo dhalisa danab koronto cilbaaris ma suurtagal baa in guryaha lagu samaysto murwaxad dabeesha wareejiso oo dhalisa danab koronto haa waxaa aragteen ciyaalka in qajaclo ay jarjaraan afar gees ay ka dhigaan ay farta geliyaan ama dabeesha la socdaan dabeesha ay wareejiso taa oo kale leewo waa suurtagal xaafidiina ma ku aragtay ama magaalada aad degan tahay dabcan waa lagu arkayaa cashirkii aan ku baranaynay maadada technology-ga tamarta biyaha ayaan geli doonaa cashirka noogu xigo aan nagu soo hadalnay horumarka iyo macnaha dabeesha ay leedahay tamarta dabeesha su-aalaha la isweydiin karo waxaa waaye tamarta dabeesha noocay ka mid tahay labada nooc ee tamarta loo qaybiyo tamarta dabeesha miday tahay labada nooc maxay ahayd tamarta maaxata iyo tamarta gurta tamarta dabeeshu waxay ka mid tahay tamarta maaxata su-aasha lagu weydiin karaa tamarta dabeeshu noocay ka tirsan tahay ma tamarta maaxata mise tamarta gurta tamarta maaxata ay ka tirsan tahay aayadda qur-aanka waa aragtaan waa ilaahay nimcad inagu galadeystay su-aasha labaad ee lagu weydiinaya waxaa waaye horumarka tiknoolajiyada ay ka gaartay in la sameeyo turbiino loo bedelo tamar socod dabeesha waa arkaysaan muraaxada ayaa loo adeegsanayaa turbiinooyinkan marka dabeeshu waxay wareejisaa murwaxadaas markay wareejisaa ceelasha biyaha noo dhamisaa korontaan ku dhalashana waxyaabo badan aan ku isticmaalnaa cashirka noogu xiga insha allahu tacaala wuxuu noqonayaa tamarta biyaha cashirka hal su-aal ay ku jirto tamarta dabeeshu noocee waaye ma nooca oo waxaa waaye tamarta gurta mise tamarta maaxata waxaa leedahay tamarta maaxata waaye dabeesha mar walba waa la helaa tamartu dabeeshu mar walba waa la helaa halkaa waxaa noogu dhammaaday cashirkan insha allahu tacaala intaa ku kulmi doono kan iyo mid kale kasii xiiso badan kulmi doona kan iyo mid kale lamid ah insha allah walaalkiin maxamed abdiqaadir cusmaan oo idin leh kusoo dhawaada haddii jeer mar walba iyo kalsooni aan idin qabo nii muujinayo insha allah dulqaad iyo macnaha waxaa loo baahan yahay ixtiraam share gareeya like sara subscribe kulli xaggiina waaye insha allahu tacaala dhammaan waa idin mahad celinayaa cashirka aad soo qaadateen iyo markaa iyo maalihii aad soo fahanteen wax kale aad soo fahmi weyseen su-aal waxay u soo diri kartaan commentiga insha allahu tacaala waxaad fahmi weysay iyo meelaha faahfaahin u baahan insha allahu tacaala halkaas ayaan ka wada hadli doonaa